warmurtiyeedkan ku aadan shirweynaha la sheegay inuu la xiriiro geedi socodka dib u eegidda dastuurka ee la qorsheeyay 8 Oktoobar 2017 oo berri ah inuu ka dhaco magaalada Muqdisho kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada guddi waxay cadeynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladeyn ku ah geedi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hanaanka dib u eegidda dastuurka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo wasaaraddu si awood marooqsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyay dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada guddi waxay ugu yeerayaan ama ugu baaqayaan dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo shacbiga Soomaaliyeed in aysan ka qayb gelin jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliso ama ilaaliyaan ku dhaqankiisa labada guddi waxay ugu yeerayaan ama ka codsanayaan dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo dhinac kasta oo kale in ay inaysan ka qayb qaadan jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka federaalka Soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliyaan ku dhaqankiisa labada guddi waxay uga digayaan hay'adaha caalamiga ah iyo deeq bixiyaasha arrimaha dib u eegidda dastuurka in aysan ka qayb ka noqon dhaqaalana ku bixin maadaama ay carqaladeyn ku tahay arrimaha geedi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana lagu afduubayo xilalkii iyo hawlihii labada guddi ee ay u xilsaaran yihiin dib u eegidda dastuurka annagoo tixraacayna qodobada 63 qodobka 63 71 110 133 iyo 134 ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii aan la yeelanay ama ay la yeesheen gudiyadu madaxda qaranka waxay cadeynayaan inaysan shirkaas ka qayb gali doonin